طفيل بن عمرو الدوسي انت نبينا وكم مغلي ايو يري تولكي انا قارسيني يدر بكي تولكي اني امرؤ لمطاع في قومي نين وحانا يددكي سؤال ودغيستا نبي الله وشاعره ادر وادر النبي صلى الله عليه وسلم markaa soo noqdo calaamo la igu gartay ilaahay ii weydii markaasuu nabigu ilaahay u baryay wajigiisa intaas ay iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa markaa waxay ii malaynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsigaga dhacday u malaynayaane ilaahu nuurka halkan iga qaado jeedalka faraskayga la dhacay iftiinka igu bedel buu yiri والله قو بدلي وانا الشلي اسلامي اي دعاء صلاه اقبلها انك انا دعاءنا كرم مات يا الشلي اسلاما كرامات قدربه كظاهريسا يا نصردي انك دين الاسلام كو دلننا ما امنسن دعاءنا الا اقبلها مات او تغي وعلى انك تولكي كرامه ولا تغي كرامه لنبيك كرامه ويديستي كرامتنا ولا سيي وعلى ان يربا كسو رميسي انتودا بدن ويديدين markaabuu ku soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam markaabuu nabiga u yimid uu ku yiri reedows ilaahay rasuulkiisa way caasiyeen habaar buu nabi allah ilaahay habaabiye markaabuu nabigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nabigu inuu habaartamayo waxay yiraahdeen reedows way halaagsameen maanta markaabuu nabigu ilaahu reedows soo hadee qalbigoogana adiga hayo ilaahu diinta jeclaysiiyo مو هباري مسعود دعي دعاء هوريس طفيل بن عمرو الدوسي والنبي قوي يري هذيك انا waxa uu ku yiri طفيلو markaad umada khayrka aad u sheegaysid oo dhibri buu keenay oo dadka isjeclaysi ha farxin dadka nahjigi dacwadana isagii baa laga saxay waana u duceeyay nabigu labadaaba la noqday laba sifo cajiiba dacwad ku salaysan dabeecad wanaagsan iyo duco labadiiba kula noqday qoomkiisa can bakrati abihim reedows oo aba hurayrana uu dhax socdo ayuu nabiga u keenay iyagoo soo wada islaamay madiinada al-munawwara karaamadii kuma islaamin waxay ku islaameen akhlaaqdii iyo ducadii intii nabiga uu ka maqlayna ummadiisa u gaarsiiyay inagana maanta inteena rageena halka fadhiya guriyahan ku noqonayno waxa laga yaabaa haday 7 qof aqalka ku soo yeynaysa habeenkii in ama laba ay ka tukato ama saddex ka tukato taariikhdu salaaqal u dhex fadhiyana ka warrama marka dacwada ma aha mas'uuliyad culimada kaliya saaran hamoodina ummadan ilaahay ba shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso insha Allah cilmiga culimada aan ka qaadno ee jumlada kaga qaadno inuu tafaariiq la noqdo ayaa diyaar umada gaarsiiyo ya ما شاء الله الله يبارك جزاكم الله خير سلام نو سو دويسنا الله نو سو دويو كل جينا جنة الفردوس الله ينقو كل ميو